la taliyihii madaxweynaha Somaliland u qaabilsanaa arrimaha doorashooyinka mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa uu telefishinka Sahan u sheegay inuu xilkaasi macasalaameeyay. waxaan doonayaa inaan ummadda u sheego iyagoo igu ogaa markan u dambeysay inaan ahaa la taliyaha dhinaca doorashooyinka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland in aan laga bilaabo maanta door biday inaan xilkaasi banneeyo maadaama ay doorashooyinkii aan u aqbalay inaan la taliye ahaado xilli waqtigaasi ay dhammaadeen doorashooyinkii kalena muddo inaga xigto muddadaana ay ii muuqatay in aanan shaqo fara badan qaban doonin sidaa awgeedna aan u arkay inaanay fiicnayn inaan ummadda ka qaato gunno aanan waxba ugu qabanayn waxaan jeclaystay inaan xilkaa u banneeyo taariikhdana 2 doorasho ayaa jirta oo labada doorashoba culays bay lahaayeen oo aniguna 2 xil oo aan qabtay ay sabab u ahaayeen inay ka mid ahayd dhismaha Somaliland iyo halgankii aynu ugu jirnay inaynu qaran Somaliland la dhiso qaran Somaliland mar waxay ahayd 2002 doorashooyinkii ugu horeeyay golayaasha deegaanada markii la qabanayay anigoo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ka tagay xilligaasi ayaa Cabdilaahi Cadde oo wasiirkii arrimaha gudaha ahaa ilaahay raalliha ka ahaado naxariistii jannada ka waraabiyo iyo Axmed Deere oo maayir loo magacaabay markaasi magaalada Hargeysa si ii yeedheen waxaana igu yidhaahdeen dawladda hoose maadaama aad ka soo shaqayn jirtay maadaama doorashooyinkii ugu horeeyay nooc aynu qabanaynaba xilal cusub baa la magacaabay oo gaarsiiya doorashada golayaashaasi la qaban doono waxaan doonaynaa inaad xilka xogayaha dawladda hoose qabato ujeedadu ma ahayn markaa inaan darajo ahaan u qabanayay waxaan ugu hiilinayay qaranka inaan khibradaasi la wadaago doorashooyinkii ugu horeeyayna caasimadda ay suurtagal ka noqon karaan mar labaadna waxaan aqbalay aniga oo wasiir ahaa inaan la taliyo noqdo sababtuna waxay ahayd 2 doorasho isa saaran baa taalay waan xiiseynayay inaan qayb ka noqdo madaxweynuhuna wuu ku guuleystay komishanka doorashooyinkuna way ku guuleysteen axsaabta qarankuna doorkoodii oo wanaagsan way qaateen shacbiga Jamhuuriyadda Somalilandna guud ahaanba waan uga mahadnaqaynaa sidii wacnayd ee ay doorashadaasi inoogu dhacday intaa ka bacdi waxa aan door biday in aan xilkaasi u banneeyo si gunnada loo siiyo qof qabanaya shaqo imika taagan intaasi ayaan doonayay inaan ku dhawaaqo Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa hadalka ku jiray in gunnadan qof loo baahan hadda la siiyo haddii gunnadana de waxa la leeyahay muddo dheer ba soo joogtay hadda oo gabaabsi xukuumadii ku jirto inaad u banneeyo macno weyn ma sameynayso taa maxaad ka oranaysaa way sameynaysaa muddadii aan joogay waa muddadii ay doorashada qabanqaabadeeda iyo qabashadeedu socotay markan iminka aan ka tagayana waa markay dhammaatay ee xaalxaalkeediina aynu dhammaynay kumay jirin fitrad aan iska fadhiyay kumay jirin markaa way sameynaysaa waxaan doonayaa inaan u banneeyo aan u fududeeyo ma jecli inaan qaato lacag aanan shaqo qabanayn waxaan u arkayaa inaanay damiir ahaanna fiicnayn dalkan yar na ku wanaagsanayn diin ahaanna aanay wanaagsanaynba saasaan u arkay Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse muddo dheer ayaad siyaasadda ku soo jirtay nin siyaasadda ku cusub ma tihid marka dadka qaar is oran kara dhinaca mucaaradka ayuu hadda u leexanaya maxaad uga jawaabi lahayd anigu waxaan ahay xisbiga kulmiye mucaaradkuna waxay ka mid yihiin asxaabta qaranka la'aantoodna
xisbiye qarankani maba yeelanayo quruxba waa xisbiye sharci laakiin iminka waxaan anigu ahay xisbiga kulmiya xilkaad hadda sheegtay inaad bannaysay la taliyaha madaxweyneha dhinaca doorashooyinku ahaa dadka qaar si uu odhan karaa cabdilaahi xilka weyn buu doonayo arrintaa taa uga tegey maxaa taa ka leh markan waxay ujeeddadeedu ahayd anigu waxaan doonayay taariikhdaasi aan qaybta ka ahaa ee aan ka mid ahaa dadkii ilaa halgankan dambe somalilan lagu dhisayey ilaan taariikhdaasi waan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha inuu fursaddaa i siiyey inaan ka mid noqdo dadka doorashooyinkaasi ka qaybgelaya ee qabanaya marka xilka kale mushkilad weyn maaha xil iminka taagan oo la qaybinayaana ma jiraba